waxaa maanta magaalooyinka Dila iyo Boorama si diiran loogu soo dhaweeyay madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi iyo wafdi uu hogaaminayo soo dhaweynta madaxweynaha oo ka qabsantay duleedka degmooyinka Dila iyo Boorama ayaa ahayd mid aan loo kala harin. Madaxweynaha ayaa waxa ugu horeyn lagu soo dhaweeyay degmada Dila halkaasi oo ay ku sugnaayeen qaar ka mid ah bulshada kala duwan ee ku nool magaalada Dila. intaasi kadib madaxweynaha iyo wafdiga uu hogaaminayo ayaa waxa loo soo galbiyay dhanka iyo magaalada Boorama waxaana duleedka degmada Boorama ee Goray Cawl si diiran ugu soo dhaweeyay qaar ka mid ah madax dhaqameedka kala duwan ee gobolka Awdal, siyaasiyiin, aqoon-yahan, maamulka gobolka iyo kan degmada iyo dhammaanba wasiirada kala duwan ee ka soo jeeda gobolka Awdal. soo dhaweyntaasi ayaa sidoo kale waxa ka dhex muuqday dhalinyaro ku labisan calanka Somaliland iyo dharka hidaha iyo dhaqanka kuwaasi oo u helana soo dhaweynta madaxweynaha. madaxweynaha ayaa waxa uu salaan ka qaatay dhammaanba bulshadii kala duwaneed ee goobjooga ahayd soo dhaweyntiisa. madaxweynaha ayaa magaalada u yimiday ka qaybgalka qalinjabinta mid ka mid ah jaamacadaha ku yaala magaalada Boorama, wuxuuna madaxweynuhu inta uu magaalada Boorama ku sugan yahay kulamo kala duwan la qaadan doona qaar ka mid ah madax dhaqameedka kala duwan ee gobolka Awdal, siyaasiyiinta iyo aqoon-yahanka. Cabdilaahi Daahir, TV-ga caalamiga ee SAB, magaalada Boorama.